hal wariyaa ka jooga wixii kale waa maqan yihiin gudoomiye in wasaaraddu celisay iyo inayaan ayaga ogeyn oo message loo dirin kala ma helno waa dulmi wasiirkina waa maqan yahay waa dulmi kale wasiirku xogeenka ma suluugin laakiin waxa la sheegay ama la akhriyay walaxuu qaadi karba ma wax culays badan waa horta warka waxaan sikin gareeyaa buugaankiisa gudoomiye ku xigeenka koobaad meel looga naqdana male wuxuu sheegay inaan laga qaldayn waxba laguma kordhi runta la sheegay sanatarada kale waa mahad celiyaa guddiga soo qoray eedeymaa sababtoo wixii la soo qorayay wixii isiriheen waxyihiin ka baxsheen laakiin wuxuu qaraar ka hore kaliisiin wasaaraddu waxay xaq u leedahay inay xukunto wasaaradeeda iyo wariyaasheeda iyo shaqaalaheeda iyo adduunyadeeda wariyaashan madaxa bannaan shacabka iska leh waxay sheegi diido oo qariso ayaa laga sugaa waxay ka cabsataa laga sugaa waxay ka sheexdaa laga sugaa wasaaradda cabsayso wasiirkooda cabsahayo wasiirku xigankooda cabsahayo shaqaalaheedu cabsahayo wada cabsahayona shaqada laga bixihayo waxba ka sugmayn shacabku waxay wax ka sugayaan waxa waaye wariyaasha madax bannaan wariyaashan madax bannaan inay madax bannaanaan loo baahan yahay qoftay gaf u geystaan iyaga la xisaabtamaa shacbiga hadday shacbiga gaf u geysanay wixii dhaca sheegaan waa waxa looga baahnaa hadda waxaa ku haligmay x control dad tiradu ka badatay xisaab dhaaf dadka dhallinyarada meehi loogu jeclay wax wada bartay wax la barayay jaamacadaha ka soo baxayay tiradoodii oo rumaana loo sheegan weyn weliba waxaa ugu liitay nin afayeen uu dowladda u yahay la lahay waa ficnaa lahayd guddoomiye in loo waco waxa masiiba hadday dhacdo wixii loo og yahay waa in la sheego waxaan arkaya taliyaha ciidanka booliiska oo ha sheegin guddoomiye ha sheegin dadka tiradiisa ha sheegin dadka tiradiisa ha sheegin ilahaan arkaya ilaahay muqaadirtiis waa talihiyoo dhan haye mataqaanaa inuu yidhaahdo ka hor mar uu yidhaaho tiradii ma ogin laakiin maha masiibaa ka dhacday laakiin tirada looma tiro koobno asaguna afkiisa ka yidhaaha la rabaa laakiin guddoomiye ha sheegin guddoomiye ha sheegin guddoomiye ha sheegin war culus waay mana eedeyahayo afkiisa waa yaallaaho wixii yaa ku jira youtube-kay ku jiraa guddoomiye aniga buuggaan daba kaci maa wax laga daba kacana ma leh nin aqoonno u leh ana akhriyey ayaa ka hadlay si wanaagsan uga hadaliyey wuxuuna ka soo saaray qoraal muuse suudo qoroo kale maahana qoraal dad oo hayahe mataqaanaa meel la mariyo oo sanatarra meel mariyaan oo wanaagsan laguma sheegin meelooban ka duleelin ma leh anigu mana fahamsanayn waxyaraa iyo calaameysnaay laakiin wuxuu yahayaa lay baray walaxaana la dhicnatii guddoomiye ku-xigeenku sheegana kuma jiraan aqoonaa ku eg akhrisaa ku eg waxa kaliyo ka hadlaya waxa waaye hay-addan warfaafinta oo la abuurayo mid dowladda ay gacanta ku hayso wasiir cabsaha ay gacanta ku hayso
maareeya tow asagu haayo ayuu wax ka sheegi laaya kaligiisna ma joogayo oo waxaan waa isbedelayaan dadkan dad xor ah oo wax sheegi karo dadka wax ka sheegayaan ku jira aniga inay iga sheegi karaan aan rabaa waxay fiican inay sheegi karaan aan rabaa laakiin haddii afka laga qabto qof la arkabana waxay ku xumaatay intay joogto kursiga inay iyadu leedahay u qabtaa in waqti ka dhamaahay ma oga inay dhimahay ma oga canaad iyo wax walba jujuubay ku joogtaa kuwa hadda wasiirada noo ah kumaba sii jiraanba wadnaha lagala baxay nin walba kursiga waxau ku haystaba ma aqaane lagama rido oo ka tag lama yiraahdo laakiin sharuud adagaa la gelshay sharuud adagoo ka bixi laaya kuwa hore waa la bedeli jiray waxbaa la bedeli jiray nin iskii uga tago iyo in nin wax fahmaayo kaliya laga baxshaa inta kale meeshooda halkooday joogaan wasiirka amnigaan maqlaay waxa uu sheegay dadka la qaado kaliya wixii kale kama hadlin wuxuu yidhi haddii loo qabo inaan qof dulmihaayo qofnaan u roonaahayo qof walba waxeediyaan sheegaa wuxuu yidhi gudoomiye wuxuu yidhi 16 uu yidhi safiirkuna 18 la qaado uu yidhi marka waa 16 uu yidhi safiirkana runow sheegay gudoomiyuhuna runow sheegay gudoomiyuhu wuxuu yidhi 16 dhaawac ahaa la qaado safiirkuna 18 diyaaradda la saaray uu yidhi labadii mataa ku jirto Turkiga marka labadiiba wax iskeeni kara waayo waxaan rabaa marka asagana hadda qaladoo gala malihiyo 16 uu rumeeyay labadaanoo ka tagi safiirkana labadiisii ku darsaday wuxuu marka wax walba hadii warku inta loo dhigana waxba ka imahaadii inta loo dhigana waxba ka imaha saxaafadan hal madax baneeyo xurhan noqoto waxay rabtaa sheegi karto dambigeeda wixii ay dhageysato hal lagu xisaabtamo inta ka jiid inta ka qabo inta ka canshuur inta shaqti goy inta waxaas hal laga baxo salaamu calaykum